iyadoo burbur aad u xoogan fatahaadii biyaha webiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne u geysatay kaamka Nasiib oo ay deganayeen dad barakacyaal ah ayaa waxay ahayd goob isku raran ah ayaa waxa ilaa 10 boos dadka barakacyaasha ee ku nool xerada Nasiib u iibiyay Marwo Magaala Maxamed Xuseen oo ku magac dheer magaalo Tuuray qaar kamid ah qoysaska ayaa u mahad celiyay gudoomiyaha kaamka Nasiib ee magaalada Beledweyne Marwo Magaala Maxamed Xuseen magaalo Tuuray oo iyada u iibisay dhul baaxad weyn oo ku yaala suuqa xoolaha maadaama xeeradii hore ay deganayeen ay ahayd meel isku raran ah ayna uga cabsatay in ay asiibto xanuunka COVID-19 biyo soo galay wax uu tayo ku haysana male mas'uul malaha waxaan ugu qaaday magaalo Tuuray waa 4 boos bas ummadina isku fuushay hadda waxaan u baahanahay in boosii noola badiyo oo dadka isku fuulo oo nool taakuleeyo oo wax noola siiyo oo qoftaas maamada oo garka noola qabto soo u baahanahay waan rafaadnaa biyo ma haysan wax haysan ma alaab ma haysan wax ku dhaqmo ma haysan musquliyaal ma haysan hal xambo musqul ma haysan maxaskiiga nooleen magaalada waa ka soo dhaqaaqnay dabcan aadayni meel dadka dharkiisa soo dhaqanayni ilma iska dirsanayno maanta maqaayad wixii lulnoo kana u kala calooshoodan ma jira hadda waan ka soo dhaqaaqnay walaalahay waxaan doonaynaa inuu soo degdeg wax noo keentiin musqul noo dhistiin wax ku jiifana ma leh oo dhulkan jiifnay wax ku dhisan ma bahaysanaba biyo naga qaadeen oo adiidu biyo naga qaadeen tabar ma bahaynaba oo soo barakacay dhibaato biyo guri xumo ayadoo koron faaris la sheega aan iswada kor saaranahay ay noola gada dhulkan gudoomiyaha noo gaday alxamdulillah shukri waan ku faraxsanahay aad aan ugu faraxsanahay xagga waxaan ugu soo barakacnay cariiri musqulyo nagu go'day xaarkii urki aan ka soo barakacnay iyo dadka isku saaro koron faaris la sheega waan soo bixisay inta ayna gaant badbaado Allah laga rabaa inuu soo badbaadisay alxamdulillah shukri gudoomiyaha dhulka noo gaday waa ku faraxsanahay waad u jiidin wax noo imaan oo agtayna maad male bi male masquul male xiita lagu xir waa rabnaa oo nin xir waa rabnaa abadan lagu gaday ay ku lacag beesh waxaan idinka rabnaa idinka baahanahay wax oo maxaan ku yiraahdaa wixii dawlad wallahi wixii ka waxaan soo gaaray ma arkay waxno imaado ma arkay meeshaan ku doon ku nahay meeshaan la soo deji waxaan hayna male maxaan ku yiraahdaa xataa amaanka waxa sahan doon lama waliba degnayni marka hore kaanka Nasiib mas'uul la'aan oo duusan bi baxadi aan taagay xaarka wasaqda guriyalka dumaan rafaad inoo teegna ama magaalo qaar la si 10 boos ay noo gadi hadda boos ma daan 10 noo gadi guriyalka niyariin bi ma haysan baad ma haysan inta ma haysan wal hay'ad aan oo daba galin male magaalada aan tuurin meelo daray dadku walaalayna bac ma haysan hooy ma haysan inta ma haysan bi ma haysan musqul ma haysan ugu dambeyntii urjoogaha kaamka Nasiib ee magaalada Beledweyne oo u iibisay dadka barakacyaasha dhulkan baaxad weyn ayaa waxay hay'adaha samafalka maamulka gobolka Hiiraan dowladda federaalka Soomaaliya madaxda sare Hirshabeelle ka codsatay inay markaasi ay ogaadaan kaamka Nasiib maadaama ay ku sugan yihiin dad aad u dhiita oo soo foosartay xaalad nolol xumo dadku waxaan ku hadlay xarriga Nasiib waxaan ku hadlay dadkii barakacyaasha ahay dadweyne ilaa 5 boos ilaa 20 boos aan u gaday ilaa iyo dadweyne oo kaliya hadda jirnay meeshaan kuma soo noqon doonaan mas'uuliyadda EBA iyo wasaaradda madaxweynaha waa ka hayaameen leel hawada laakiin baahidada ay tahay biilaan iyo daawalaan iyo cuntaraan ayaan geynay oo free ah waa soo aragteen oo hadda waxa waaye inuu hay'adaha gacanta waa soo booqdo waa soo aragteen inta kale qofkayna taqaano ama maxay ahayd dareynayso xaaladda bini'aadamka waxaa ka jirta meeshaan waxaan u sheegaynaa in markay media ka dhigaystaan ay kaamka ka soo booqdaan dhibaatada ka jirta ay wax ka qabtaan hay'adaha samafalka maamulka gobolka ka degmada idaan cidda qusayso dadka ganacsatada xitaa inay wax ka dhaqaysanayso dadkaas waa iska sabab isku masaakiina Cabdinuur Cusmaan Adan Carays wadin Radio TV magaalada Beledweyne.